waxay dhaheen barnaamijkan oo aan waxba ka sharin waa inuu noo baxaa caawa amiirka warkiisa ma diidi karta calooshoodii ay joogtaa hayahan lah laakiin in la cadde ayaan wacnay oo berigaas ahay wasiiru dawlaha gaashaandhigga si uu uga jawaabo warkiisa waraysiga amiirku markuu baxay waraysigii wasiirkaan raacinay in la caddo oo dhahaya axmed godane hadduu rag yahay bannaanka u soo baxo sida dumarku indhashareer qaataa ma dhahay raggooda saxaafadda u xil saaraay waxaa ku jira rag aad u caqli badan oo aad la yaabayso sida ay saxaafadda u fahamsan yihiin iyo sida ay u fakerayaan mid ka mid ah soo wacay wuxuu yidhi guurow amiirka maxaad murtadka u daba dhigteen waxaan idhi haddii annagu dhinac kasta waa daynaa labada dhinacba waan daynaa wuxuu yidhi waraysiga amiirku caawa ka hor ma bixin in la cadde markuu ka jawaabayo yaa u sheegay sababtoo in la cadde annagaa dhegaysiinay inuu ka jawaabo waa fahansooma marka in la cadde inuu ka jawaabo siduu ku ogaadu yidhi xaguu ka maqlay ilaahay wuxuu waafajiyey marka aniga ilaan rabbiyaa badbaadinaya malaha websaytekiina uu ka dhagaystay sababtoo ayagu wax kasta oo idaacadda keenayaan kow websaytekooda markay saaraan kadib websaytyadooda markay saaraan kadib ayay idaacadda keeni jira malaha websaytekiin uu ka dhagaystaya waa la ogaa doonaa yidhi meeshu ka dhagaysta halkaa waxaa ka caday inuu dareensan yahay inaan annagu inta dhegaysiina ka jawaab dhahno marka cabsida iyo rucbiga iyo haddii alla ku roon yahay wax la koobi kara ma sababtoo ah calooshoodii aad joogtaa waxayse raalli ka hayna waad sheegaysa warbaahintai waxa ka shaqeeyana waxay u yaqaaniin murtadiin gaala u shaqeey ayay ka aaminsan yihin oo mar kasta la dili karo dhiiggooda bannaany oo sacad kuugu sheegayaan isu kuu qarinay marka cabsi la qiyaasi karo ama la qiimay karo maaha waxaan rabaa laba dil wariyaal badan oo hal ah laba ah ka badan ah waa la laayay laakiin waxaan rabaa labadii u horreysay iyo labadii u dambeysay inaan waxtaa weydiiyo dilkii mahad axmed cilmi iyo cali iimaan shabaab iyo dilkii cabdicasiis afrika iyo sharmaarke sanadkii naga tegay dhammaadkiisa maxay isaga mid ka ahaayeen xusuus ahaantaada maxay safariin oo diraysa aadaad u mahadsantahay waxay isaga mid ka ahaayeen kow mahad axmed cilmi waxaa risaasta lagu dhuftay isagoo u socda xaruntiisa shaqada idaacadda hoon afriig qayb ka mida oo capital voice la yidhaha ayuu agaasima ka ah wuxuu qaban jiray gelinka hore barnaamij hoodi la dhihi jiray isagoo iskoyska ifka xalan la yidhaahdo baabuur uga degey oo idaacadda u sii lugaynay ifka xalan iyo idaacadda hoon afriigna waxay isu jireen adiga dhowr tallaabo adigoo 5 boos camal u dhaxaysay qiyaas ahaan ayaa gadaashiisa laga yimid haddii alla ku roon yahay la toogto kadibna cali iimaan markii meydkii aaskii laga soo laabtay yaa la dilay lama ogeyn markaas ka hor ugaarsiga nimanka labadan kale oo hadda cabdicasiis afrika iyo sharmaake oo dhaawac culus u gaar laakiin ku talagalku ay dilka ah waxay isaga mid yihiin aan aaminsanahay dad aan laga filayn inay ka qayb qaateen wariyaashan sidii loo dili lahaa filawaaga inay isaga mid yihiin aaminsanahay sababtoo ah labadan waxaa la socday
agaasimo ka tirsan wasaaradda warfaafinta